السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داوديال مeel walibaad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga oo aad ka daawataan muqbaahiyaha STN habeen walba saacadan oo kale. Haddaba caawa barnaamijka waa ku duwan yahay habeenadii hore haddii aad arki jirteen siyaasi ama falanqeeye ama waxyaabo kale iyadoo looga hadlayo. Caawa barnaamijku waxa igu marti ah shakhsi magaciisa inta badan aad wada taqaanaan isla markaasina inta muuqiisa aan aqaanin codkiisa ay wada yaqaanaan. waa Sheekh Maxamed Sheekh Ibrahim Cali oo lagu garan og yahay Kenyawi. Sheekh kusoo dhawo muqbaahiyaha STN. aad iyo aad ayaan u dhowahay waan ku faraxsanahay runtii inaan imaado xarunta dhexe ee STN magaalada Nairobi. aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Haddaba daawadayaal qaybaha dambe ee barnaamijka intaynu ku guda jirno waxaan idin furi doonaa qadadka telefoonada idinkoo waxyaabo badan ka faa'iidi doono isla markaasina caawa waraysiga sheekha ayaa wuxuu ku qotami doonaa barnaamijka cafi walaalka iyo waxyaabihii ku imaaday iyo socdaaladii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya uu ku tagay goobihii uu soo maray iyo dhammaan wax alla wixii ku saabsan dacwada islaamka ayaan sheekhu caawa halkan ku wada gorfeyn doona idinkoo nagala qayb qaadan doona qadadka telefoonada isla markaasina soo weydiin doona su-aal waliba oo kugu taagno is leedahay mar un yaa Sheekh Kenyawi kula kulmiyo aad weydiisid. caawa STN ayaa fursad kuu siinaysa in aad weydiiso. mar kale haddii sheekh aan dib ugu laawdo Sheekh Maxamed Sheekh Ibrahim Cali Kenyawi inta badan dadka magacaaga ayay haystaan. sheekha halkuu ku dhashay, halkuu kusoo barbaaray, halkuu kusoo waxbartay, bal inta aan aqoonta ku lahayn sheekh haddii caawa aad isbarto. runtii waxaan ku dhashay waa Kenya ayaan ku dhashay. aabahay ayaa Kenyaan markii hore ahaa askartii Kenyana uu ku jiray. weliba dadkii loo xiray ahaa NFD inuu xoreeyo inuu Soomaaliya uu maaragtay NFD uu ka xoreeyo. marka wuu xirnaa 6 sano u xirnaa. marka anigu waxaan ku dhashay runtii waa Wajeer ayaan ku dhashay. laakiin barbaaritaankaygii waxaan kusoo barbaaray markii odaga la soo daayay kadib Soomaaliya gaar magaalada Baydhabo Janay. haddaad maqlaysaan dadkii reer Baydhabo halkan ayaan idinka salaamaya caawa. waa meeshii yaraantaydii ilaa iyo qixii aan joogay aan wax ku bartaan kusoo barbaari weeyaan. kadibna waxaan aaday wadanka Masar halkaasoo aan jaamacadda Azhar kulliyadda Shareeca wal Qaanuun qismi shareeca runtii aan ka dhiganayay. waa tahay aad u mahadsantahay. waxaan filayaa dadyo badan oo ku wareersanaa sheekha halkuu ku dhashay Kismaayo oo Muqdisho islahaayeen in ay caawa wax badan ka barteen. sheekh waxaa jira barnaamij inta badan inkastoo waxyaabo badan oo dacwada ka mid ah lagugu bartay haddana laba barnaamij oo waxaa jira la magac baxay shaqayso hashaxaadine iyo cafi walaalka. shaqayso hashaxaadine intaan u imaanin barnaamijkan cafi walaalka maxay ahayd sababihii kugu dhaliyey maxaa keenay balse halkuu maaragtay kasoo kubcay oo meesha ugu horreysa oo aad ka qabatay isla markaasina aad aragtay inuu yahay barnaamij wax bedeli kara. marka hore barnaamijka cafi walaalka magaca aniga ayaa sameeyey cafi walaalka. waa jiraan qolo kale oo cafis barnaamij la yiraahdo wadi jiray aanan aqoonin runtii weli xaashi iyo rag dadaalayo waayo. laakiin cafi walaalka ereygan waa erey bixinta runtii waa qayb kamid ah mawduuca aniga ayaa doortay. cid lehna malaha cafiska maxaa yeelay ummadda marka cafis inay cafiso lagu dhiirigelinayo waa shay diini ah. shayga diinigana ixtikaar ma galo iyo anaa leh iyo anaa kaaga horeeyay waxa la yiraahdo ma jiraan. maxaa yeelay ilaahay baa daa'iman nagu dhiirigelinaya rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam in cafiska ummadda la wado oo dadka la islaaxiyo oo la socdo oo hadduu program khaas ii ahaan lahaa waxbay ahaan lahayd oo xoogaa adduunya aan ku raadsanayo. laakiin kan waa diini mid janno lagu raadsanayo waayo. barnaamijkana waxaa iiga horeeyey aniga cafi walaalka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam oo dhahaya qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa cala Allah. waxaad ku tiraahdaa dadkan reer Maka iyo ummadda oo dhan ma sa'altukum min ajrin wax lacaga idinma weydiisanay. wax lacaga ma rabi qandaraas ma aha mashruuc ma aha waxba idinkama rabi fahuwa lakum khayrkan iyo wanaagan diintan aan wado idinkaa iska leh. idinkaa ka faa'iidaysanaya aniga miya joornaatigayga lacagtayda yani daalkayga biilkayga in ajriya illa cala Allah. ilaahay baa korkiisa ay tahay jannaadan ku raadsanaa.
marka barnaamijka cafi walaalka waa ku celceliyaaye daqiiqad ma aha saacad, daqiiqad kamid ah waktigayga oo aan ummadda isu keenayo, uurkooda aan nacaybkii karaahiyada ka saarayo, oo aan isu keenayo jacayl dhex dhigayo, waa daqiiqado waktigay kamida. wallahi inaana lacag malaayiin ma goyso, adduunka oo dhan 7 sami 7 dhul wallahi waa ka qaalisan tahay habeen aan kasoo dhax reerkayga. marka waxaan ku raadsanaa, laakiin waxaan ku raadsanaa daalkayga iyo qaylidayda jannaad 8 ayaan ku doonaa. marka cafi walaalka waxaan runtii ku bilaabay daar salaam, maya waxaan ku bilaabay Kampala, masjid tawxiid maxamed cabdiweli, sheekh maxamed cabdiweli madaxiis kor allah yeela, cimrigiisina ilaahay waxaan ka baryay caafimaad iyo cibaadasana allah ugu dheereeyo. runtii masaajidkii tawxiid ayaa Kampala ayaa aad loo soo buuxiyey, waan dhigay, ilaahay baa wuxuu igu dhaliyay marka in gacmaha la taago, war ballan ma qaadanaa inaan iscafino, walaale inaan cafino. markaasaa la yihi haa, waa la taagay, waan duceeyey. maalin kadib ayaa wiil ii yimid, wuxuu yihi nin xabado meelaha dhowr xabo lagu soo dhuftay ayaa wuxuu diiday, xamar baa laga soo qaaday, meeshaa lagu daaweynaya waa Kampala. marka waa runtii 3 jeerna waa la qalay, xabadii wuu ku dhibtooday, wuxuu diiday inuu cafiyo ninkii xabadda, waana isku reer markaa. marka ninkii baa jooga, marka ninkii baa wuxuu yihi xalay waxaan tegay muxaadaradii sheekh Kenyaawi ee masjid tawxiid, mar allaaliyo markii aan gacmaha taagnay oo aan ilaahay ballan ka qaadnay inaan walaalo cafinay, ninkii ayaan cafiyey buu yihi. farxadda ka muuqato waad yaabaysaa. isla daar salaam ayaan haddana ku dhigay, waa Tanzania. dad aad isu dagaalsanaa oo ganacsato ahaa oo si walba inta loo dhexgeli la heshiisiin waaye, unbaa markii gacmihii la taagay oo ilaahay dartii loo taagay, anna aan duceeyey, bah nin ii sheego wuxuu yihi ninkaa dad buu aad ula dagaalsan yahay ee la hadal. markaan u tegay oo aan rabay xoogaha inaan gees ula baxo ayaa wuxuu yihi sheekh waa maxay, ma arrintii ganacsiga ee baaburaha galabta markii gacmaha taagaa dhehaysaan cafiyey, waa bilooyin buu cafin la'aa. marka waxaan ku arkay khayr fara badan, caafimaad fara badan. markaasaa waxaan doonay inaan keenno dalkeena xamar. sidii baan ku tegey, alxamdulilah, ilaa iyo garowe ilaa iyo ayaan soo maray. goobaha aad tagtay waxaa kamid ahayd magaalada Kismaayo, Muqdisho, Baydhabo iyo Garowe oo dhammaantood mataqaanaa ah dhulka Soomaaliyeed. isla markaasina markii Garowe laga reebo, Muqdisho iyo Kismaayo iyo Baydhabo ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, meelihii sida ba-an ay u ragaadiyeen ee dagaaladii sokeeye iyo abaarihii, dad badan oo qaxooti ay kasoo kicitimeen. sidee isugu suurta gashay magaalada Muqdisho oo amnigeeda xaaladeeda aada loo ogyahay, aan waqtigan hadda la joogo oo ay kasoo roranaysa dhahaya ahayn, xilligaasi xilli aada u adag ay ahayd, in dadku manaan kor u dhaafaya 70,000 dad kor u dhaafaya, in aada iskugu keento garoon, isla markaasina aada ugu qabato wacdi, halkaas aada wax ugu sheegto, yaa kaa gacan siiyey, sideese kugu suurto gashay? wallahi horta arrinkaas arrin aad u adag buu ahaa. 3 bilood iyo 7 cisho ayaan Soomaaliya joogay, guud ahaan xamar ba aan u badnaade. waqti adag bay ahayd, maalinna cabsi ima gelin, maxaa yeelay wadada aan ku socda ayaan waxaan aaminsanaa wada saxa inay tahay. waxaan kaloo aaminsanaa inaanan saacadayda dhaafeynin, intaan sariir ku dhiman lahaa in aan sadaqada midda ugu fiican oo ah dad in laysu keeno inaan ku dhinto, oo waxa aan go-aansaday. ilaahayna runtii wuu isugay. waxaa runtii aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa dadka reer Muqdisho idaylkood, laga bilaabo Balcad ilaa iyo Afgooye, inta u dhaxaysa dadkii hooyooyinka, gabdhihii, dhalinyaradii, waayeeladii, shacabkii oo dhan oo qaarkood intay gaadiid waayeen soo lugeeyey oo yimid garoonka. qaar baa subaxii soo kalahay, 10 saac oo galabnimo la dhigayaa, aroortii bay Afgooye iyo Balcad inta u dhaxaysay kasoo kalaheen, way soo lugeeyeen. xataa ceelasha biyaha oo ay soo dulqaateen dhididka, baloogyadii jidkii xirxirnaa ay kasoo dhexbaxayeen, oo ay haraadeen, kuleel baa jiray. intaasna waxay usoo socdeen inay barnaamijka cafi walaalka ay ka qayb galaan. marka waxaan arkay laabtooda laab fiican waayo. reer Muqdisho aad iyo aad baad ii sharafteen runtii, waxaad u soo ordayseen ee aad u imanayseenna waxa waaye ma aha Kenyaawi inaad aragtaan, bal waxay ahayd barnaamijka quruxda badan ee laabta la isugu xaarayay iyo ducada jamaaciga ah halkaa
runtii ilaahay iyo malaa'igihiisu kama maqnayna inaad imaadaan runtii qalbiyadiini ayibka ahaa qurxoonaa xikmad iyo iimaan allah idinkaga buuxiye ayaad maalinkaas soo saarteen ma ilaawi kari runtii mana idin ilaawin waan idiin soo laaban doonaa weliba stadio conis maahane stadio muqdisho ayaan insha allahu tacaala aanu ku qaban doonaa mid kale oo weliba cafiska iyo in wixii laisu celiye xuquuq ahaa ilaahayna loo toobad keeno marka waxaa si aad iyo aada runtii iiga gacan qabtay waa dowladda federaalka ah shacabka ka soke dowladda federaalka ah aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaya waa dowladaydii aad iyo aad baan u jeclahay dowladda uu weliba madaxda u yahay maxamed cabdullaahi farmaajo walaalkay iyo xasan khayrena uu u yahay ra-iisul wasaaraha iyo wasaaraddii awqaafta iyo arrimaha diinta khaasatan wasiirka awqaafta iyo wasiir ku-xigeenka sheekh cusmaan dhuubow iyo cabdikariin cabdixakiin wasiiru dowlah runtii intaa keliya maaha waxaa isku xirmay wasaaraddii awqaafta arrimaha diinta iyo ciidamadii iyo gobolkii hooyooyin aanan ilaawi karin marnaba laabteyda aanan ka bixi karin ya gabadha walaasheena jawaahir maama jawaahir baarqab iyo maama safiyo hooyooyin fara badan runtii oo har iyo habeen u taagnaa usbuucii aan ka tegay conis meesha la yihahdo hoolkii sahal oo uu naga baaqday ilaa iyo jimcihii xigay waa 2 jimco oo isku xigta yani dhexdooda 8 cisho ayayn fariisanin amnigii iyo waxay isku xireen ganacsatadii iyo wixii baabuure ee dadka lagu qaadi lahaa iyo ammaankii iyo garoonkii inay diyaariyaan ay u diyaariyaan maxay u diyaariyaan makarafoonadiisii iyo gogashiisii iyo wixii oo dhan runtii ilaahayna wuu la garab galay barnaamijkan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waa dowladda federaalka ah oo xataa runtii joogayga intii meesha aan joogay ma aragtaay dee ihayay anigu arday baan ahay nin miskiina ayaan ahay lacag kuma qaati waxaan ilaahay dartii baan u socdaa runtii dowladda gacan xoogle ayay iga siisay ya ilaa qofku wuxuu cuno u baahan yahay wuxuu cabo u baahan yahay meeluu seexdo u baahan yahay dhulku ammaan ma aha waa in aad heshaa dacwada cid kugu caawisa rasuulka khadiijo ku caawisay sal ll slam umuna khadiija abaabakari ay garab galeen ganacsatadii iyo xoolahoodii la garab galeen anigu maahi ganacsato maahi siyaasi maahi waxaan u baahanahay dacwada wax kabagareeya dacwada wax xoojiya wax niyadda iisii dhisa intaan maqanahay ciyaalkaygii waxaan u baahanahay maaragtay garab qabta biilka ka bixiya kirada ka bixiya cunadii iskuulkoodii bixiya waa u baahanahay dacwada intaas laakiin inta badan waxaan ku xisaabtamaa jeebka ilaahayna ummadaas oo qalbigoodii ii jalciyey aad iyo aad waxaan 1,000 jeer u mahad celinayaa dowladda federaalka ah maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha runtii oo si aad iyo aad ah dacwadaasayto ii suurageliyey ammaankii ciidamadii garoonka aniga malihi dowladdaa leh iyadaa bixin karaysa iyadoon ogolaanin ma la tegi kara 70,000 ama 80,000 taqriiban garoonkaas buuxa ammaankoodii in la sugo yaa kafaalo qaaday ilaahay ka soke waa dowladda federaalka waxaan idin leeyahay dowladdiina ilaashada dowladda soomaaliya runtii khaldaad badan ha lahaato yaa saxaya idinkaa saxaya dadku waa insaan marka waxaa loo baahan dowladdeena inaad garab istaagtaan waxaa loo baahan qarankeena inaad ilaalisaan meel walbo aad joogtaan dal iyo dibad qaramo kale aan ku noolahay oo aan ku bahdelannahay cizigeenii ku jabay haddaan helnay dad walaalaheena oo shaqaynaya oo wadadii saxeed hadda dhabaha saare ummadda isu keenaysa wallaahi waxaan hubaa oo brotocolka madaxweynaha iyo xasan khayre ra-iisul wasaaraha wallaahi ay iigu dhaarteen 7 saac habeennimo dhibka keliya aan qabno waxa waaye dheheen jiif la-aan 7 saac oo habeennimo ayaa maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha iyo ra-isul wasaare ay soo jeedaan waana arkay anaa xafiiska ugu tegey waa 7 saac habeennimo intaas ummadda hawlahooda ay qabanayaan yani ciyaar maaha haddana waa aragtaan xasan khayre ra-iisul wasaaraheena ilaahay ha barakeeye yani dadaalka reerkiisa intuu ka maqan yahay inta uu maraya ilaa iyo ma aragtaa dhulul fara badan iyo dhulka uu seexanaya meelaha uu seexanayo runtii dadkiisa u dhex gale ummadda siduu isugu keenayo qaranka siduu ma aragtaaye wiil baa wuxuu dhaar ugu marayaa wasaaradaha aan ka shaqaynayo dhowr wasaaradooduu maray wallaahi wasaaradda markaan tago magacayga intaan register gareeya oo aan qoro ayaan waa ku caajisi jiray mamar waa isaga soo tegi jiray haddana ka waran baa iri waa intuusan xasan khayre imaanin ka hor hadda ka waran baa iri wuxuu yihi wallaahi hadda 8 subaxnimo haddaan kadib maro
waxaa waaye welwel ma joogi kari maxaa yeelay isagoo ordaayo naga soo duldhacaa xisaabtan baa yimi waa waxa loo baahan yahay qof walba marka qaranka waa u baahannahay qaranku ashkhaas ma ahee qaranka qof walboo yimaada adeegu u yahay qarankeena aan dhisano qarankaan sharaf ku leenahay qarankaan cizi ku leenahay qarankeena aan dhowrano dowladeena aan dhowrano cizigeena hay noo soo noqdo wixii wax u qaban kara wixii lacag u deeqi kara wixii duca u deeqi kara fikradii maskax u deeqi kara qof walba iyo ummad walba waxay sharaf ku leedahay qarankeeda qaranka cidda doonta madaxa u noqoto sheekh markii laga soo tago cafi walaalka stadium conis ee magaalada muqdisho iyo sidii wanaagsanaa ee aada u qabatay waxaa jirtaa magaalada baydhabo aad tagtay cafi walaalka ayaad ku qabatay baydhabo aad iyo aad bulsho badan ayaa isku soo baxday halkaasi baydhabo safarkaagii intaadan aadin intaad muqdisho joogtay ayaa laguu sii diyaariyay halkaad ku qaban lahayd oo ayadana mataqaana maamulkii koonfur galbeed iyo dowladdii federaalka isku xiran ayaa kuu sii diyaariyey mise markaad meesha tagtay culimadii iyo maamulkii meesha ka jiray ayaa markaasi ku abaabulay meesha intaad joogtay koonfur galbeed runtii dowlad bay leedahay laftagaren allaha barakeeyo runtii isaga ayaa mas-uul ka ahaa markii aan baydhabo tegayey garoonka waa iska jajaban yahay waad aragtay dabcan cadow waa iska jira oo wanaagga kasoo horjeeda siyaasad adagoo laisku haystay baa jirta mumkin markaas iyada ah oo dadka qaarkii ay xiran yihiin walaalkeena robow sheekh mukhtaar robow oo kale ilaahay xariga ha kasoo daayo runtii wixii hore uu sameeyeyba yani wuxuu doonayay inuu dib maaragtay uu uqabto oo uu dib uu isu soxo oo ummadda uu wax u qabto ilaahay waxaan ka baryayaa xarigiisana allaha soo daayo runtii dadka reer baydhabo oo aanan kala harin ya ayaa runtii meesha igu soo dhaweeyey si qurux badan dhulkii bay ii fariisteen weliba kuraas badan ma oolin waxaan la yaabay dulqaadkooda rag odayaal ah hooyooyin xijaab xiran oo wallaahi ayaa dhulkii fadhiyey oo weliba saacad ii fadhiyey oo weliba ballan qaaday iyagoo ooyaya gacmihii taagay in ay cafinaya walaalahood aad baan runtii ugu farxay waan u duceeyey waxaana rajaynayaa baydhabo janaay inay soo laaban doonto mar kale ka waran ayada garowe booqashadaadi garowe runtii waa wadan xor ah waaye waxaan dareemay dhul xor ah inaan tegey dhul kala dambeyn dowlad wanaagsan leh shacabkii madaxda ay isku xiran yihiin iyo culimadoodu ay isku xiryiin weliba waxyaabaha aadka ugu farxay waxaa waye culimada reer puntland marka ay arrin gooyaan dowlad waa ku taageereysaa shacabkan waa fulnaya yani wax aad iyo aad u wanaagsan waaye dacwo xoog len waa ka socotaa reer puntland garowe waad ogsoontihiin ballantii ilaahay aan ka qaadnay anna waa idin kula jiray in aan iscafinayna laabta aan isu xaariyna ballan baad qaadeen waana idin soo laaban doonaa boosaaso iyo qardho iyo gaalkacyo waa tegi doonaa maxaa yeelay waxaan u tegi waayey markii xoogaha waxbaa ka jiray maaragtay dowladdana si fiican uma aanay gaarin dowladdii hore kala guur bay ahayd marka xoogaha qallaasan boosaasay ka jiray gaalkacyana ma anfacaysa hal maalin oo muxaadara ah waa dadkaygii waxaan rabaa usbuuc inaan gaalkacyo joogo oo weliba reer hooyaday iyo reer aabbahay waa labada dhinace anigu soomaali oo dhan ba ay dhashay inaan waxaan rabaa intaan dhex istaaga aan markaas maaragtay ilaahay u barino marka waa idin soo laabanaya qorshaha waa iigu jirta wadada kala qaybisa gaalkacyo inaad istaagto kuwana aad u yeerto kuwana aad u yeerto aan dhahay idinkuna hooyaday baa tihiin idinkuna aabbahay baa tihiin aabbi hooya hadday isdagaalaan yaa heshiisiye waa wiilkoodii soo ma garan marka insha allahu tacaala ilaahayna waa idin baryaa waan idin jeclahay runtii reer gaalkacyo guud ahaan reer puntland guud ahaan soomaaliya o dhan aad baan waan idin duceeyaa mar walba waa idinku soo laaban doonaa waa tahay daawadayaal waxaa iga xasuusinaa caawa qeybaha dambe ee barnaamijka inaan qadadka teleefonada si toosa idinkugu furi doono si aad su-aasha diiniga ah ee aada qabto aada sheekh kinyaabi ula wadaagto iyo cafi walaalka waxaad ka aaminsan tahay ama waxa aad qabto haddii cudad aad qabto cafi walaalka sheekh kinyaabi waxaa jiro safaro badan oo maaragtay deegaano soomaali ah aan ku idhaahday hadda koonfur galbeed iyo markii laga soo tago puntland iyo mataqaanaa muqdisho kismaayo sidoo kale waa tagtay barnaamijkii hashaxaadina shaqeyso ka bilowday ka waran ayada safarkaaga kismaayo safarka kismaayo aan ku tegay wuxuu ahaa runtii barnaamijkii shaqeyso hashaxaadina waa inta aanan bilaabin cafi walaalka oo xataa uganda iyo tanzania aanan ka bilaabin marka cafi walaalka dib dambey ahayd barnaamijkan kismaayo u tegay waa shaqeyso hashaxaadina markaan arkay dad fara badan oo dee
lagu soo daalay oo lacag iyo yani maal iyo wakti iyo xoog intuu waalidkii geliyey markay jaamacadihii ka baxeen la rabay inuu waalidka nasto oo ninkana mustaqbal uu samaysto ayaa dadkii shaqo la-aan waaye qalinkii shaqo waa keeni waaye xafiis waa la wada fariisan waaye dadkii marka way iska shaxaatamayaan dad yaroo mobilada iyo meelaha wax ku gadgadaya shaqo yar abuurtay ayay dhalinyaradeena dul saaryihiin reer north eastern ayaa soo baxay halkii nairobiyay deeqdaa dad badan oo dul saaroo shaxaatamayaan arkay oo dhalinyaro muruqa leh marka ana cilmi diiniya maadaama aan bartay dadkan maxaan u qaban karaa waan habeenaan fikiraya runtii waxaa ilaahay igu dhaliyey in aan ku qalqaaliyo oo aan ku dhaliyo inay muruqooda maalaan sidaasaa runtii igu dhalisay sababtoo ah qalinka waxaa ka horeeyey maxay waxaa ka horeeyey xooga rasuulka salawaatu llahi wasalaamu aleyh markii 40 sano uu jiray ayaa iqra iyo nuun walqalam wax la akriyay iyo wax la qoro lagu soo dejiyey ka hor yaraantiisii 8 jirkiisii muruqiisu maalayay waa 8 jir oo reer dhambiilaya oo ari raacaya 12 jirkiisii ganacsi marka haddii aan xoogaa ku dhiirigelin dhalinyarada oo aan dhahno war xooggiina maala oo dhagax jibiya oo beerta qoda oo badda gala oo wax dhisa oo timaha jara oo hilbaha waxay kuleeyihiin culimada wax iyagiiba ayan qabanaynin ya ayay maaragtay kugu qalqaalinayaan idinkuma qabataan inay leeyihiin marka taa u xiro ayaa waxaan bilaabay shaqayso hashaxaadine inaan hadba shaqada aan dhiirigelinaya dharkeedii inta xidho in aan si dhaba oo daacada u qabto meesha anoo booraysan dhidisan inaan dadkii dhahaa war shaqadan gacanta sare ayaa khayr badan shaqa sharaf leh shaqayso hashaxaadine taasaa runtii igu dhalisay ilaa iyo waxaan u malaynayaa 12 mawduuc ayaan kasoo qabtay halkaas waad fiirsateen idaylkiin dad badan waa feedback fiican waa ka helay qiso aanan marnaba ilaaweynin dadkii waxaan u tegay biraha tumayey ee farsamo yaqaanka ah ee magaalada Kismaayo ee xaafadda Sariiraha ku yaal waliba iyadoo liiga celinayo meeshaan iyo ma fiicnaa maya ere soo walaalaheena kuma noola waa meel fiican markaan u tegay runtii qaar baa ilmeeyey waxay dhaheen adiga ma shaqinyaawi baa tahay mise walaalkii waxaa yar shaqinyaawi ayaan ahay way isfiiriyeen markaasaa waxaa la yidhi biima naga cabi haddaan ku siina kelmadaas waa ku celceliyaa aadna way ii gubtay runtii way itaabatay biima naga cabaysaa heer waxaan gaarsiinay dadkii walaalaheen ee farsamo yaqaaniinta ahaa in aan biyo la iska cabin waxaan ku iri sow haddii aad ii imaadaan sow biyo igamaydaan cabteen ha ii keen waa oomanahay walaalkiina ahay markayba biyaha la ii keen qabow aad u macaan runtii waan cabay markaasa waxaan iri biyo keliya idinka cabi maayo waxaan rabaa inaan berri imaado halkan dharkiina xidho garbaha inaan isku qabano isla fariisano dabka wada shidano birta gelino isla garaacno weliba aan dhiiri geliyo ayaan doonaya shaqadan quruxda badan farsamadan aad haysaan ee barakaysan yaa xalaasha ah in aan ma yeelaysaa bay dheheen haayar maxaan u yeeli waaye markaasaa subaxi dambe imid anagoo laba gaari ah meeshii baan la fariistay runtii xataa waxaan diiday dabka inuu isaga shiday anaa shiday anaa buufiyey anaa birtii geliyay waad aragteen idaylkiin runtii aad iyo aad bay u farxeen marka maxaa yeelay shaqadan biraha ah ummadaha adduunka markay maalgeliyeen waxaa waaye idaylkood waa maanta waa kasoo diyaarada la sameynaa annagana waa baryootameena qori ma samaysan karna maxaa yeelay waxaan xaqirnay dadkii walaaliheena biraha ahaa dadkan diyaarka ah xooga leh oo wakti haya ee biraha ay sameyna haddaan dhiirigelin lahayn xataa guryahooda si ay u egyihiin fiiri meesha waa meel primitive ah marka xataa haddii loo dhisi lahaa shaqo xalaali haystaane shaqadana birahana rasuul salawatullahi wasalaamu caleyhi aad buu u ammaanay wuxuu weliba ilaahay subxaanahu watacaala waa ka u dhahaya wacallamnaahu sancata labusi lakum nebi daa-uud ayaan barnay yaa baraya birtumidda yaa wax baraya macalinka birtumaha yaa waaye allah subxaanah anaa baray yaad bartay ma shaksi caadi a maya nebi daa-uud baan baray markaasuu tumaya shaqadiisa taasay ahayd shaqo la qabtaana waxaa ugu fiican camalu rajuli biyadih marka taasaa runtii igu dhalisay in aan dhalinyaradeenna wehel u noqono inay arkaan culimada inay iska dhex arkaan inaanay masaajidada kale culimada aanay ku ekaanin weliba gaarisaloj ayaan banaankeeda ku qabtay muxaadara waa meel wasaqa bulaacada bacyaal badan buuq badan anoo taagan oo dadkuna ay badan yihiin life ku jira ayaa nin isoo garab istaagay ii naxaya aniga kelmadaas dhegaysta ii naxaya u naxaya magaca culimada muxuu leeyahy mataqaanaan wuxuu dhahayaa war sheekha inta maxaad u keenteen wasakdani bulaacadahan
waan fiiriyey xaggee la igeyn lahaa baan ku yiri wuxuu yihi masaajidka sheekha maxaad masaajid eeg sheekh intuu leeyahay masaajid ha halkaasuu ku bilowdaa halkaasuu ku dhamaadaa taasna waxaa waaye runtii isaga wuxuu leey meel fiican gee laakiin waa diintii baa dabar go-eysa dacwada dayacaadda dacwada waxa waaye in culimadii iyo dadka waxgaradka u ekeeya masaajidka masaajidadii oo maanta aan xor ahayn oo la kala leeyahay qolaba magaca leeyahay wa ana almasaajida lilahi waa laga tegay masaajidadii firqooyina kale leh masaajidadii waxaa kale leh qabaa'il baa kale leh masaajidadii col waaye maanta ood arkaysaan in lagu ekeeyo masaajidna lagu ekeeyo oo dadkii dhalinyarada ahay aan waxu sheegaynayna aanay dacwadii fidinaynin macnaha waxaa la kala gooyey culimadii warathatu lambiyaa ahaa rususha ahaa iyo shacabkii marka meel cidlay ku dhaceen ninkii waxaan ku yihi nin yahow waa la igeeyey masaajidka laakiin dadkaan rabaan ka waayey dadkii aan rabay masaajidka waxaa jooga gabar xijaaban nin saa kitaab akhristay nin khamiis qaba nin nadiif dad culimaa jooga laakiin dadka aan rabo waa kuwan banaanka ee aan masaajidka galaynin kuwa cuqdada laabtoodii ka ilaahay ibliis uu kala geeyey kuwan ribada salaada aan tukan qaadka qayilaya waxaan ribada iyo balaayada iyo rashwada xaaraanta kuwan waxadaya kuwan waa kuwa u baahan waa soo dhexgali marka waa inaan culimada waa in shacabka waa inay iska dhex arkaan culimadii oo dhargadaysa culimadii oo gaari dhaqaysa culimadii oo timo jaraysa culimadii oo maaragtay beera falaysa kalluumaysanaysa meel walba culimadu way leedahay marka majaalkeeni runtii waa usoo noqonay ogaada sheekh waxaa jirta inaadan intii hadda soomaaliya aad dhex socotay deegaanadeeda aadan tegin dhankaas iyo gobolada waqooyi hargeysa oo kale burco dhankaas ma ku qorshaysan tahay inaad gaarto oo cafi walaalka iyo shaqaysaha shaxaadina labadaba aad gaarsiiso runtii somaliland aad iyo aad allah barakeeyo runtii allah barakeeyo dadkeeda dad tayibiin ah aad u qalbi wanaagsan waxaan tegey 2015 waana u sheegay meelo walba intaan istaagay ilaa gabiley boorame burco hargeysa shiikh xataa berbere way kululayda intii aan isu maray meel walba waa u sheegay horta allah idin barakeeyo waxaan fikraddii aan ka aaminsanaa 2015 horteed runtii been bay noqotay waxaan arkay diin la-aana lagu sheegi jiray waa meel aan diin lahayn oo ilaahay rasuulkiisa lagu caaya runtii waxaan arkay haddii lagu adimo calimataan baa deganaa haddii la adimo oo aadan masaajid ka gelin 5 waqti oo hortaa la aqimo doorka ugu sareeya ayaad ku tukanaysaa diin jacayl ummadii oo dhan dharkaa la dhigaya qof walba dukaankiisii markaasaa masaajidka loo soo ordaya waxyaabahan ku farxay magaalada waxaan ka waayay gabar qaawan ama surwaal wadata ama dirac iideelkood waa la wada xijaaban yahay ilmihii yar yaraa madaaristii xijaab dugsiyada waxaa haddana ku batay madaaristii qur'aaniga ayaa ku batay sheekh maxamed aadan allaha dhowrey runtii iyo wasiirka khaliil meel la furayey oo dee dhowr boqoloo ruux oo wada xufaad ah sheekh dirir sheekh maxamed cali gadle sheekheeni sheekh xuseen sheekh cusmaan tafasiirta dowraad aan laga kala tegin xataa generaaladii retire-ka ahaa iyo kuwii shaqaynayey ayaa markay shaqadooda soo bogtaan tafsiirka sheekh maxamed dirir allah barakeeye xifdiye caafimaadna allah siiye ayaa loo imaanaya yacni culimo dadkii oo dhan waa wada culimo soo ma garan marka aad bay runtii iisoo dhaweeyeen waxaan idin leeyahay reer hargeysow reer somalilandow ilaahay haydan barakeeyo wada jirkiina ilaaliya khilaafka iska daaya wada jira dowlad iyo shacabba culimo iyo caamo wada jirkiina wax ka wanaagsan male runtii dowlad baad ahaydeen waxaad ahaydeen qaran dhisan baad ahaydeen dad isu urursan baad ahaydeen ammaankiina in dahab 4 saac oo habeenimo calimataan horteeda lagu iibiyo waa 4 saac habeenimo hal qof ma keenin in lacagaha kurjada iga weyn aniga sariflayaasha inay meesha inta la tubo maro la saaro lasoo tukado loo soo noqdo iyadoo aan la taaban hal nin ma keenin wada jirkiinaad ku keenteen social mediahan yaanu idinka faa'iidaysanin qalbiyadiina wanaajiya ammaankiina ilaaliya ammaanka runtii waa waxa ugu weyn ee ilaahay islaamka kadib uu adoomadiisa uu ugu mana sheegto waayo ammaan baad haysataan wada jirkiina ilaaliya haddaad dibad joogtaan iyo haddaad gudaha joogtaan teeda kale qalbiyada u fura xataa dadka reer koonfur u fur waa walaalihiin siyaasadda waa gooni rag baa isku haysta siyaasad laakiin aniga iyo adiga waxba iskuma haysano
soomaali baynu nahay ahaada jamhuuriyad gooniya aan ahaano wax dhiba male haddii dadku waaweyn ay ku heshiyaan laakiin aniga ka ahaan daaci baan ahay adigana waxaa tahay shacabkii baa tahay shacab iyo daaci waa isu baahan yihiin qalbiyadeena idaylkeen dal iyo dibad meel walbo aynu jirno hal baynu nahay u daaya arrimaha kale siyaasadda madaxda u daaya siyaasadda rag bay leedahay u daaya madax baad leedihiin allah idiin dhowro madax bay leeyihiin koonfur allah u dhowro u daaya waxay doonaan ha ku heshiyaan ama ha magacyo ha isu bixiyaan ama ha noqdaana dowlado kala duwan ama jaar ha noqdaana ama ha isu yimaadaana arrin noo taala maha annaga maxaa noo yaala qalbiyada inaan isu sifayno cuqdada inaan iska qaadno in aan qalbiyadeena nadiif ka dhigno inaan ilaahay ku xirnaano in aan ilaalino cid walba meesha ay ku nooshahay ammaankeeda inaan dhowrno ammaankeeda inaan dhowrno nidaamka noo degsan inaan ilaalino ilaahay haydan barakeeyo wadajirkiina ilaaliya 30 sanaad soo ilaalinayseen maanta yaysan idinka burburin aad iyo aad baan idin salaamaya runtii qorshahana waa iigu jirtaa in aan taga mar kale hadduu ilaahay yiraahdo oo ilaa somaliland iyada dhexdeeda dagaalaha ka dhacay ha inay dhexdeeda xataa iscafiyaan dadkii hal qalbi ay ku shaqeeyaan gacmaha iyagoo isqabsan hal qalbi ah inay maaragtay dowladoodii iyo maaragtay ay dhistaan cilmigoodii bartaan cizigoodii soo waa wax loo baahan yahay marka allah idan barakeeyo waa idiin soo duceynaya mar walba meel walbo aad joogtaan allah idan dhowro hala ilaaliyo ammaanka iyo wadajirkiina ilaashada iyo nidaamkiinaba allah idan barakeeyo waa tahay sheekh haatana dhanka daawadayaasha ayaan eegi doonaa fadlan daawade markii aadna soo wacday ka fogow aalada aad inaga daawanayso iyo meesha buuqa leh ee aad fadhido si su-aasha aa qabto iyo jawaabta sheekha uu bixinayo si waadiix ah aan u wada maqalno sidoo kale barta facebooka ayaa commentiga su-aasha aad rabto aad noogu reebi kartaa anoo halkan idinkaga akrin doono sheekhana idin weydiin doono daawadaha ugu horeeya qadka telefoon ku jira ayaan sheekh fursad siin doonaa halo westn halo westn walaal magacaagii halkaad naga soo waceyso fadlan kana fogow aaladaad naga daawanayso halo wacalaykum asalaam walaal magacaagii halkaad naga soo waceyso magacayga waa nimco waxaan ka soo wacay magaalada gaarisa nimco haye soo dhawow nimco waan ka xumahay nimco sheekh umaysan suurtagelin in ay barnaamijka nagala qayb qaadato fadlan mar kale aan ku celinayaa daawade markaadna soo wacdo ka fogow dhalada aad naga daawanayso si ismaqalkeena u wanaagsanaado daawadaha haatan qadka telefoon ku jira ayaan fursad siin doonaa halo westn halo westn halo walaal magacaagii halkaad naga soo wacayso kana fogow aaladaad inaga daawanayso fadlan halo waa shaaq malelo joogo nare oo wajar joog magacaagii igu celi shaaq malelo oo wajar joog haye soo dhawow sheekh waxaan weydiin lahay haye waa isaaq oo joogo wajar isaaq haye isaaq ku soco su-aashaada sheekh waxaan weydiin lahay nin dili dad ma dukusiin karaa nin dili dad ma dukusiin karaa waa tahay aad ayaa umahadsan tahay hore ayaan usii socon doonaa oo daawadaha kale xiga ayaan fursadda siin doonaa halo westn halo westn ha walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso waa anigoo ah istahil magacaaga waa anigoo ah istahil haye istahil intee joogtaa waan ka xumahay fadlan daawadayaal mar kale ayaan idinkugu celinayaa mawduuca cafi walaalka iyo shaqaysaha shaxaadine waxyaabaha ku saabsan aad leedahay su-aal sheekha ka weydii su-aalaheena inta badan ha ku koobnaadaan su-aalaha mawduuca ka baxsan sheekha hadduu fursad u helo waa uu ka jawaabi doonaa haddii kalena barnaamijyo kale ayaan mar kale sheekha idinkula wadaagi doonaa oo mar kale su-aalahaasi aada weydiin doontaan daawadaha qadka telefoon ku jira ayaan fursadda siin doonaa halo westn الو السلام عليكم. وعليكم السلام walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso maxamed halkaad naga soo wacaysaa halo maxamed
waan ka xumahay maxamed umaysan suurtagelin sheekh waxaa jira in barnaamijkan cafi walaalka oo meelo badan aad ka soo qabatay siyaasiyiin badan oo soomaaliyeed ayaa jira oo mataqaanaa barnaamijkan cafi walaalka aad uga faa'iideysay isla markaasina siyaasi kale u xanaaqsanaa oo cafi walaalka markii uu arkay ama daawaday ama uu kula kulmay aada usoo bandhigtay siyaasigii kale ee waxa uu qabay cafiyey isla markaasina shaqo wanaag iyo horumar ay ka qabsoontay goobaha ay siyaasiyiinta inta badan aad kula kulantay ee barnaamijka cafi walaalka aad uga faa'iideysay maxaa kamid ahaa inta badan masaajidada ayay runtii yimaadaan oo ay walaalaho ay isku cafiyaan qaarkood waa ay jiraan anaanan istaagin ma istaagi aniga ma harsadi guryahoodan ugu tagaa xataa anaa raadiyo inaan ku dhiboodaa laga yaabaa ninka siyaasiga telefoonkiisa in aan gurigiisa ku booqdo oo aan gurigiisa ugu tago oo aan halkaasi kusoo salaamo kadibna aan barnaamijka kala hadlo dad fara badan ayaan runtii u tegay oo aan arrinkaasi kala hadlay aadna waa usoo dhaweeyeen waxaa kamid ahaa walaalkeena governorka cali banow ayaa kamid oo runtii ciiddii aan ugu tegay gurigiisa oo aan runtii si fiicanna iisoo dhaweeyey governorka wajeer maxamed cabdi allah barakeeye runtii ayaan halkan nairobi igu casuumay oo aan u tegay oo aan runtii wax kalena wallahi inaan ugu tegin waa un ilaahay dartii iyo in maadaama mas-uuliyiin ay yihiin in badana siyaasadda laisku xagxagtay ya oo lagu kala tegay nacayb iyo karaahiya uurkeenii galay in aan bal aan sifeeyo oo aan arrintii aan kala hadlo sidii walaalaha la isugu keeni lahaa runtii dad badanna waa ii dhiman yihiin qaarna waa isweynay runtii ma harsadi maxaa yeelay mataqaanaa waxaan sida u sameynaya dhambaalkan aniga keliyaanu iga ekaanin hal xadiisaan rabaa inaan idinla wadaaga idaylkiin xadiiskaasna runtii aa qaadaan cabdullaahi ibni camr ibni caas radia allahu canhuma isaga aabihi ayaa wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam islaaxu afdalu sadaqati islaaxu dati lbayn sadaqo waxa u fadliga badan ugu ajarka badan ilaahay jecel yahay waa dadka walaalaha ee ibliisku kala geeyey in laysu soo dhaweeyo anas ibn malik ayaa haddana wuxuu leeyahay nin ay dhahaan abu ayub oo rasuulka saaxiibkii ahaa qaraabana ahaayeen aad iyo aad uu jeclaa ayaa wuxuu ku yihi abu ayuba lala hadlayaa makuu sheegaa alaa adulluka calaa tijaara makuu sheegaa ganacsi makuu sheegaa business makuu sheegaa wax aad rogrogato ganacsi markaasaa wuxuu yihi haa ii sheeg qaala bala ii sheeg maxaa loo sheegaa abu ayub waxa loo sheegayo waa waxa maanta uu kuu sheegaya xabiibkaaga sala allahu alay slam ila xabiibka xaadiistiisu waa nool yihiin hadaladiisu waa nool yihiin waa liyundira man kaana xayan labada waxyi qur'aanka iyo axaadiista waxa waaye dadka noolay u degaan dadka noolay waxbaraan inta dhimatay ya waagay noolaayeen ayuu la hadli wayna ku baraareen abu ayub waaguu noolaa haa buu yihi ma kuu sheegaa baa la yihi ganacsi aad ku liibaanaysid ganacsi aad ma aragtaay 8 janno aad ku dhisanaysid ma aha dhagxaantan laga tagayo ma aha 8 jannada waan laga soo noqonaynin ganacsi xurulciin aad ku helaysid wilma yaroo kuu shaqeeya lu aad u malaysid 4 webi ganacsi ma kuu sheegaa adduunka aad ku liibaantid adduunka ilaahay cizigaaga kusoo celiyo sharaf uu kugu yeelo adduun ganacsi dadku kugu jeclaadaan ganacsi raabix ah oo aad u liibaantid ganacsi aad ku heshid caafimaad awlaadda ilaahay kugu dhaqaaleeyo ilaahay shar oo dhan kaaga dheereeyo ummadda isu ma kuu sheegaa ganacsi waa u baahannahay aniga iyo adiga waa u baahannahay ganacsiga waxa iga orodsiinaya iga qaylisiinaya ma kuu sheegaa haa buu yihi qaala bala wuxuu yihi sil bayna annaasi idaa tafaasaduu waqarib baynahum idaa tabaacaduu allah eeg sil bayna annaas dadka isku xidh oo isku xiriiri isu soo dhaweeye fiiri isku xiriiri dadka waa goorma idaa tafaasaduu marka inta ibliiska caro dhex dhigo oo ay isu caroodaan oo ay kala furfuran rabaan markaysa waa kala furfurinayaan marka ha isu caroonina la yihi laa tabaaqaduu ha walaa tafaasad laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa taqaatacuu walaa tadaabaruu wakunuu cibaad allahi ikhwaana ha isu caroonina oo ha isxasidina markaa kadib ha kala go-ina oo ha isgoynina kadibna ha kala tegina hadda muxuu leeyahy yani sil bayna annaas dadka xiriiri idaa tafaasaduu
marka ibliiska uu caro dhex dhigo oo ay kala furfuran rabaan, isu caroon rabaan, uurka xasad isugu qaadi rabaan, isgoyn rabaan, kala fogaan rabaan, markiiba xiriiri. waqarib baynahum idaa tabaacaduu, haddii hortaadee ay isa soo dagaaleen ooba la kala tegayna haddana dhex galo, la hadalo, xaggii xagga ka maro, isu soo dhowee. allah taas waa maxay? waa shaqo la qabtaa shaqada u fiican, ganacsi la qabtaa ganacsiga u fiican. dadkeena baagamuundada aan qabano waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan. marka allah idan barakeeyo. waan galay runtii, waana la hadlay siyaasiyiin fara badan, mana ka daali dooni, waa la hadli doonaa. waa tahay dhankaasi khadadka teleefonada ayaan sheekh ku laaban doonaa mar kale. halo westn. halo westn, asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam. fadlan ka fogow aaladaad inaga daawanayso si aan isula soconno. aada iyo aad baan kuu maqlaya walaalkii shiika, waa salaamaya markii ugu horreysay. waan filayaa inuu ku maqlayo, kaana qaaday mid lamidana hawada kuusoo marinaya. magacaaga iyo halka aada joogto. walaalkay magacayga cabdirasaaq cabdi xasan baa la yihahdaa. alwaaq ayaan joogaa ee countiga Mandera ka tirsan, ma garat. haye marka sheeka waa salaamaya. sheeka su-aal yaroo gaaban baa rabaa inaan weydiiyo, maadaama cabdi walaalkaaga uu yidhi sheeka haddii dadka nadan gobolada nadan maaragtay waqooyi bari dhibaatadii ka dhacday, siyaasad dadka kala jeysay maaragtay ummadii ay sidii ogaatay isugu dhacday oo dadkii ay ismaceen oo dadkii wada dhashay ismaceen oo imtixaan badan iyo dhibaatooyin badan ay soo dhex mareen. sheeka ma u qorshaysanta inuu yimaado oo gobolada nadan uu maaragtay uu dadka iyagaan maaragtay laftooda ilaa saacadna ilaa waqtigii kaambeenka ilaa saacaddan dadka isma fiicno inuu maaragtay way dadka si ay isu cadfiyaan. sheeka ma u qorshaysan tahay maaragtay inuu yimaado uu yiraahdo maaragtay khaasatan anaga reer Mandera haddaan nahdo ayaantii hore doorashada maaragtay dadki aad bay isugu ximaadeen. maaragtay waxaa weye dadka waa dad hal waa dad wada dhashay oo hal mida oo hal qabiila oonan dad kale ahayn. marka waxaa waye sheeka walaalkeena waxaan maaragtay ma u qorshaysan inuu yimaado gobolada kana khaasatan Mandera oo kaleeta ama Ceelwaaqadan oo kaleeta walaalkaan waqooyi bari khaasatan inuu yimaado ma u qorshaysan tahay. waan ku salaamaya sheekh, aad iyo aad baan ku ilaahay ku barakeeyaa sheekh. aad ayaad u mahadsan tahay cabdiqaadir oo jooga Ceelwaaq. waxa uu yidhi sheekha ma u qorshaysan tahay in uu imaado mataqaana deegaanada waqooyi bari, khaasatan wuxuu yihi Mandera oo kale xilligii campaignka aad baa la iskugu xumaaday, ilaa hadda dad baa wax isu qaba. sheekha marka cafi walaalka inuu keeno Mandera, inuu tago Wajeer, inuu tago Garissa, intuu ka tago uu tago Dadaab iyo mataqaana Faafi iyo deegaanada tuulooyinka, inuu cafi walaalka ka fuliyo. sheekha ma u qorshaysan tahay? allah ku barakeeyo. runtii waxaan arkaa muwaadinka soomaaliga ah oo kenyaanka ah laabtiisu inay fiican tahay, weliba inuu xambaarsan yahay hami ah ummadihii kala tegay walaalaha inuu isu soo dhaweeyo. marka hore laabta allah ku waasiciyo, xikmad iimaan allah kaaga buuxiyo. adigoo kale waa loo baahan yahay. aad baana ku salaamaya walaali cabdiqaadir. waa ii qorshaysan tahay. Wajeer waad aragtay banaankii weyne ee qoraxay ayaan ramadaanka horteed inay heedaan filayaa ayaan runtii ku qabtay. aad iyo aad magaaladii caafimaad bay heshay. wixii ka dambeeyey madaxdii way heshiiyeen. runtii waxaa iigu farxad badnayd runtii markii suldaan najiib oo runtii suldaan qabiilka dogoodiga fayda ah, qabiil in la sheegay ceeb ma aha, runtii uu isoo wacay oo uu yiri sheekh khayr allah ku siiyo, intaasoo sana dad aan col ahayn ayaa joogay qoraxi iyo cafi walaalka, kadibna wayna soo waceen. halkii hadee waxaa ka dhacay ya walaalnimadii ay soo noqotay iyo cafiskii. waa suldaan najiib, hadduu imaqlaayo aad baan kuu salaamaya suldaan najiib, waan idin imaan doonaa mar kale. marka way ii qorshaysan tahay runtii inaan imaado Mandera, countiga Mandera iyo degmooyinkooda. waxaa iigu dambeysay Masalani, soo ijaara maaha, ijaara sub county ka tirsan tahay umaleeya. Masalani oo runtii khayr allah siiye dadkaa degan qalbi wanaag ay igu soo dhaweeyeen, madaxdoodii, culimadoodii, aqoon-yahanadoodii, rag iyo dumar, wallaahi yar iyo weyn banaanka inta loo soo baxay. kaliibkaasna insha allahu tacaala waan idin tusin doonaa, halkaana idinka tusi doonaa. runtii aad baa laisu cafiyey ilaa iyo maantana runtii magaaladaas way isoo wacaan inaan mar labaad ku celiyo. marka waa dhulkii aan u dhashay, dhulka North Eastern. waan imanayaa Soomaali meel walba ay joogtana waan u tagayaa, guri guri iyo shaksi shaksi shaqo, meel aan runtii dhaafaya ma laha. intaan noolahay waxaan u joogaa waa barnaamijkaasito cafi walaalka. waa tahay waqti wayna haya awgiis daawadaha kale ayaan sii siin doonaa. halo westn. halo westn. asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam walaal. magacaaga halkaad naga soo wacayso? magacayga waa maxamed.
fadlan ka fogow dhalada aad naga daawanayso si aan usula socono walaal. waan ka xumahay daawadahaasi uma suurtagelin asagoo isku dayay inuu dhalada iska dhageysado codkiisii isla markaasina macquul ay ahayn oo labada aalad ay isdiidayaan. daawadaha khadka telefoon ku jira halo westien. halo ها walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso. ciise maxamed qaasim magaalada gaarisa. magacaaga igu celi. ciise maxamed qaasim. haya ciise soo dhawow. sheekhan salaamaya. haye hor ugu soco wax ciise ducaan dhe. maasha allah ciise wiil aada u da-yar codkiisaan ka dareemaya. ciise meeqa sana jirta? 10 sano. oo mahadsan tahay ciise aada waan ku salaameynaa anagana. Waa lagu salaameynaa. ciise wuxuu codsaday sheekh in loo soo duceeyo insha allah. ku xigsato daawadaha kale ayaan kusii socon doonaa. ciise sheekh waa kuu soo duceyn doonaa. hala westien. halo ها walaal magacaaga halkaad naga soo wacaysa fadlan. ka socdaa magaalada wajeer sheekh waan salaamay magacaaga. magacayga waxaa waaye cabdi haye cabdi soo dhawow. sheekh waxaan weydiinahay haye nin tuugsana oo lacag dadka ka xaaqsana oo rursana aha. xajka ma ku aadi karaa ma ku cimran karaa xajka lacag uu dadka ka baryay oo uu tuugsaday xajka miyuu ku aadi karaa? haa siduu arursado lacagtii oo u gaartay alafu inuu baxo aada baa umahadsan tahay. waan kusii socon doonaa daawadaha kale su-aalahan isku aruurinaya sheekh. halo westien. wanka mahay daawadahaasi uma suurtagelin. daawadaha kale ee qadka telefoon ku jira halo westien. asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaaga halkaad naga soo wacayso. fartuun sharif namaanga see tahay. fiican walaal farduus intee joogtaa? namaanga haye soo dhawow. waan dhowray sheekhaan salaamaya dar allah u jeclaa ilaahay isagana caafimaad iyo cafaan siiyo. aamin maasha allah. haye su-aashaada aad qabto caawa. asagana inaan salaamadan kuusoo waco adna waad salaaman tahay insha allah. aada baa umahadsan tahay malaa'iga kusoo salaamto annagana waan ku salaameynaa. sheekh cabdi oo jooga wajeer wuxuu yihi lacag qofka hadduu aruursado u tuugsada xajka ma kusoo xajin karaa? runtii xaj kuma jirna hadda barnaamijkana barnaamijkii xajka ma aha. su-aashaas waxaa wanaagsan dadka culimada ah. anigana daa'iman su-aalaha diiniga waa ka fogaadaa. waxaan ahay arday waa ku celceliyaa arday idinkoo kale ayaan ahay. marka intaan ordayana waa waxbarashaan ku jiraa. haddii su-aal diiniya la yiraahda iyo fatwo haddii la yiraahdana waxaa jooga runtii culimo rabbaaniyiin ah ilaahay barakeeyey. culimo runtii cilmiga u taagan gobol walba oo soomaaliya ahna way joogaan. marka runtii iyagaa loola noqonaya. laakiin waxaan yar oona xusuusinayaa tuugsiga sidiisuba waa gacan liidato gacan hooseysa waayo. qofka ma loo baahna. weliba maalinka qiyaamaha ah qofka tuugsadaa baahidiisa wuu u tuugsan karaa. haddii markaa uu dhiban yahay war halay caawiya hal mar waa dhici kartaa. laakiin haddii tuugsigu uu u noqdo inuu wax badsado oo wax badsi ama meel ha ku dhisto ama meel ha ku aadee waxa waaye maalinka qiyaamaha ah runtii maadaama biyihii wejigiisa cizigii dhowriya wejigiisa uu albaabadii uu la istaagay maalinka qiyaamaha isagoo qalfoofoo lafuu soo baxaya. tuugsigu wax fiican ma aha. marka teeda kale su-aalahaas kalena in xajkiisa uu ku aadi karo iyo in kalena runtii culimada weydiinaysaan. iyagaa runtii iiga awleysan. wiilkii yaraa ciise ilaahay waxaan uga baryaya waa 10 jir ilaahay ha dhowro. waa runtii waa ku jeclahay buu yiri. waa nin ma aragtayay wiil yaroo waxaa waaye dadka wanaagsan jecel culimada jecel xaafidulqur'aan daaciya allah ka yeelo. gabadha walaasheenaana waxaan leeyahay sidaad ii jeclaatay runtii reer lamaanga ilaahay ha ku jeclaada adduunya aakhiro. haddaad ubad leedahayna allah ha ku daweeyo allah ha kuu dhowro. haddii aad xanuunsan tahayna allah kuu caafiyo. haddii lagaa maqan yahayna allah kuu soo ururiyo. waxaan fursad ayaan siin doonaa daawadayaasha kale ee qadka telefoon ku jira iyadoo waktiga uu ina sii hayo oo wax yar barnaamijkii gabagabadii aan kusii siqayno. halo stn. halo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso? walaal ceel dooreed baan kaa soo wacayaa. haye magacaaga? sahraa lay dhahaa. sahra soo dhawow.
waa dhowhay walaale waa idin salaamaya marka hore adiga iyo sheekhaba waan kaa qaadnay mid lamida ayaan hawada kusoo marinaynaa walaale allah yasalimag waxaan ku idhi anigu waxaan ka hadlayaa baabka cafi walaalka marka anigu oo gabadh yarabaa berin inaga dhintay markii uu dhintay ilaahay ha u naxariisto isagiyo intii islaamiya ummadda nebi maxamedaba ilmo yar buu markaa igaga dhintay ilmo yar baa ii joogay ilmo yarna uurkiisaan lahaa kaan uurkiisa lahaa wiil bii noqday kii horena gabadh buu ahaa maalkii intii aan wiilkiiba dhalanin baa waxaa boobay walaaladii way qaateen wiilkii waa dhashay wuu dhintay xoolihii isagaa dhexal joojiyey bay da aniga ila tahay xagga diinta islaamka xoolihii wixii yaraaye markaa anigu aan gacanta ku haystay masaariiftayda ahayd iyo wixii waa soomaaliyaba waan iskaga tegay reerkayagaan u dhiibtay intiina reerkayagii baa qaatay aniga gabadh yarad cidlaama kusoo dhacnay markii dambe aan idhi intii aan u dhiibtay reerkayagii isiiya oo dee aniga inan taayar baalaho aka inan taayar baa maxaan dhahay xoolaha iska lahayn oo wakaasoo waaba layla yaabayo anaga oo yaaban oo inantii yarayno de marka ay weynaatay ana aan markaa de qofka xisaaradii garanaya aan noqday markii hore gabadh yar baan ahaaye baa aan weydiiyo dadkii dad bay ahayn reer miyiho wayla yaabeen oo xoolihii aabbahay markuu dhintay kuwaygiina waxay ku dhexladeen xoolihii odayga haye waalidkiisi dee umana cadhoon karo waana saamaxayaa hooyada iyo aabbahay waxaan janno kala jecelahay ma jirto dadkii aanu walaalaha ahayn waanu ku kala go-nay maxaan dhahayey ma daneeyo waayo dee agoontii yaryarayde laygaga dhintay dadka dhaxlay waxaanu arkay wax dhibaato ah oo ay la inaana jirin haye kuwii adeeradooda ahaa ee dhacayna dadkii ay ku korsadeen qaar baa xataa dad intay bahal ku noqdeen ay cuneenoo iyaga ilaahay abaalmariba oo ilmaha ay ku koriyeen wiilal 17 jir ah ninbaa intii u yimi cunay oo horar ku noqday oo ilaahay ba cunsiiyey oo dee waxa weeye waa dulmiga ay galeen oo ilaahay istaabu kaga jira saara waqti oo inahayaa awgii soo gaabi marka yacni dadkaas aan u cadhooday ee aan walaalaha nahay ee aan gooyey ee iyagu dhibaatada aan ku gooyey igu keenay ee agoontaydii yaryaray dhaxlay maxaa bal hadda shiikow miyaan ku xumahay mise inaan waxaan ugu xumaani ma geysto laakiin waan iskaga tegi waan idin salaamaya udin doonaa aday mahadsantahay sheekh sahra oo joogta oldhereed waad maqlaysay horta ilaahay adiga xil buu ku saaray iyagana xil buu saaray xoolaha agoomahana ilaahay wuu ka hadlay meel buu saaray adiga waxaa lagu saaray in aadan goynin ehelkaaga qaraabadaada xigtadaada oo aada xiriirisid xataa hadday ku xumeeyaan xataa hadday ku gooyaan xataa hadday ku fogeeyaan idfac bilatii hiya axsan adiga mu'min baa tahay qof wanaagsan oo ilaahay raaligeliya tahay marka waa in wax wanaagown ay kaa yimaadaan xaggaaga ibliiska aanu kasoo gelin waxa la xumeeyey adiga maaha xaq ilaahay uu meesha dhigay ayaa la doodsiiyey ilaahayna qodobuu ka soo saaray in aladiina yaأkuluuna amwaala اlyataama ظulma inamaa yaأkuluuna fii buطuunihim naara wasayaslowna saciira kuwa xoolaha agoomaha ah la rabay inay u dhaqaaleeyaan ay u ilaaliyaan u xifdiyaan markay weynaadanaysiyaan kuwa dayacay ee cunaya waxay cunayaan xoolo maahe waa cadaab dab bay cunayaan hadday dhintaan oo ayan ka toobad keenin oo ayan xaqi celinina maalinka qiyaamaha waxa ay sugayaan waa cadaab halkaasaa wasayaslowna saciiran holacaasi cadaabkaasaa la gelinaya raggan waxaa la xisaabtamaya waa ilaahay subxaanahu watacaala haddii dee agoonka intuu weynaaday uu dhaha adeerada iyo dadkii waxayga cunay waan cafiyey wuu yeeli karaya oo cafiska cid ka xigta ma laha laakiin adiga waxaad dadkan ku goysaa waa gardarro runtii ha goynin walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin cafiskaasaa laga yaabaa xaqi inuu soo celiyo qalbiyadoodii inuu jelciyo faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim ninkii colaadda idin dhexaysa ku dulmayay ku goynaya xoolahaagii cunay markaad cafisid
cafisku door buu ciyaarayaa isagaa tegaya cafiskii uurkoodu xaaraya wuu jilcinaya qalbigoodii iyo damiirkoodii soo celinaya kadibna iyagaa soo laaban doono oo wixii gudi doona marka adiga ha u gefin xiriiri allah ku barakeeye xiriirkaas ku raadi xoolahaaga idaylkiina waxaan ilahay idinkaga baryayaa dulmiga inuu idinka qaado waa tahay waxaynu taagannahay guntii iyo gabagabadii barnaamijka bandhiga oo caawa sheekh maxamed sheekh ibraahim kinyaawi uu marti igu ahaa balse intaanan soo gabagabin 4 su-aal oo ka baxsan cafi walaalka iyo mataqaanaa qeysaha shaxaadine ee ah su-aalaha fadhiga xudayfe markii saan oo kale loola fadhiya aan weydiiyo daawadayaal badan ay ka faa'iideysan doonaan oo sheekha ay ka baran doonaan sheekh waxaan jeclaan lahaa inaad soo gagaabiso sheekh haddaan ku iraaho xeebaha dalka soomaaliya ku yaala ee tuulooyinka ama jasiiradaha ama magaalooyinka mid baan ku dalxiisgeynayaa tee dooran lahayd xeebaha soomaaliya runtii inta aan arkay waa waa 2 xeebood weeyaan marka de inta waa xeebta Kismaayo iyo xeebta Muqdisho de xeebaha kale ii dhiman ya weliba khaasatan xeebihii Saciid Barqash iyo Puntland ee dhulkii uduga ayaan aad iyo aad u rabi lahaa oo aan taariikhiyan dee u tagi lahaa haddii aan dhaho sheekh kinyaawi caawa marti qaadaya cunto maxaad iga cuni lahayd cuntada aan cuni lahaa waa cuntada caanka aan ku nahay runtii soor iyo caano cabitaanka runtii waxa aan aad iyo aad u jeclaan lahaa waa caanaha geela dee kalarkay ugu jeceshahay midabada waxaan ugu jecelahay midabka cadaanka ah daa'iman aan sita dee waa tahay intaana soo gabagabayn 1 daqiiqa wax ka yaraan ku siinaya oo dardaaran ah runtii dardaaranka waxa waaye hal xadiisaan idin la dooranaya waxaan jecelahay inaan shaqayno idaylkeen keligay ma aha inaan cafiska wado shaqaysaha shaxaadine inaa ila wadaan dhambaalkan inaad qaadaan ayaan rabaa inta la dhegaysto in la kaydiyo ma aha waa in la fidiyaa balliquu cani walow aaya waxa waaye hal xadiis oo ah maadaama sadaqada ugu fadliga badan dadka oo la heshiisiyey ay tahay ayaa rasuulku abu ayub ayaa wuxuu ku leeyahay yaa abaa ayub alaa adulluka calaa sadaqatin yuxibuha allahu warasuuluh ma kuu sheegaa sadaqa ilaahi iyo rasuulkiisu jecel yihiin markaasuu yihi nacam ii sheeg rasuul allah wuxuu yihi tuslixu bayna annaasi idaa tabaagaduu watafaasaduu dadka inaad heshiisiisid marka ay isu caroodaan oo haddana xasinta uurkooda gale ay isgoyn rabaan kala tegi rabaan inaad isu keentid marka waa sadaqada ugu fiican aynu idaylkeen ka shaqayno dadka inaynu isu keenno waan idin cafiyey idinkana cafis ayaan runtii maaragta idinka dalbanaya ummadana hays cafiso barnaamijkana ogeysiis yaraan ku darsan lahaa oo aada muhiim iigu ah waxa waaye waxaan aad iyo aad ugu farxay wiilka dhalinyarada ee barakaysan garizaloj runtii ganacsado waaye ilaahay ganacsigiisa xalaal ha ugu barakeeyo wuxuu soo saaray runtii saraawiil ay ku qoran tahay cafi walaalka aad baan ugu farxay hal xabiitus markaan dhahay wuxuu yihi sheekh 3 beri ugu horeysay ayay iga dhamaadeen waxaan ku dhiirigeliyey inuu funaanadnadan soo saaro funaanada weliba dhalinyaradu ku xaragooto hor ay uga qoran tahay cafi walaalka gadaal cafi walaalka koofiyada cafi walaalka gabdhahana runtii waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa waad garanaysaan dadka reer Kenya Swahiliga leesaday soo saaraan ay ku qoran tahay mahmahyaal mid walba waa dhambaal fariin ay gudbinayaan yaa ka wanaagsan cafi walaalka yaa ka wanaagsan hala soo saaro dadka meelahaas maandeeqi soo saaraya dharkan quruxda badan daracyo cafi walaasha ay ku qoran tahay mar walbo cafi walaasha indhaha dadka ay ku arkaana waxaad garanaysaan ilaahay qulubtoodu waasicinaya idinkan ajra ka helaysaan taas aad kula dardaarmayaan waa tahay waxaan intaasi kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga oo caawa marti igu ahaa sheekh maxamed sheekh ibraahim cali oo lagu garan ogyahay Kinyaawi tan intaynu ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegaya anigoo xudayfa ah caawa cafi walaalka ayaan leeyahay cid waliba oo islaam ah anna waan cafiyey cid kasto waa tahay sheekh kusoo dhawow markale aad iyo aad waa idin